بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودة وذكاء أونلاين تريننج. وحنا ما تعرفين كتبوا إن برنامج امتحانات نقطة دراسة عندهم كافي أونلاين تريننج. وكم إذا برنامج هذا معرفة مشاريع ذا أما project management softwares مجدي سنة الله كانت project هو برنامج معلومة وآد لو يقانه وذهان معرفة مشاريع ذا نلاقي يقانه. وبرنامج مهم آد بلارة كل معرفة مشاريع ذا. كورس كم حنو قادم تونا مدة هالبلا. waxaan ku koobnaan doonaa 5 chapter. Chapterka koowaad waxaan ku qaadan doonaa faham guud oo ku saabsan project-ku muxuu yahay, waxa loo isticmaalaa, faa'iidooyinka uu leeyahay, iyo sidoo kale terminologies muhiim ah oo inaga daba iman doona ama loo isticmaalo maamulida mashaariicda. Chapterka labaad waxaan ku qaadan doonaa sida loo soo download gareysto ama loola soo dego software-ka, sida fasaxyada loo geliyo, interface-ka guud oo ka kooban barnaamijku, sida jadwalka mashruuca loogu muujiyo iyo guud ahaan faahfaahinta guud ee mashruuca sida loo geliyo. Chapterkan saddexaad waxaan ku qaadan doonaa sida loo geliyo hawlqabadyada, sida loo geliyo waqtiga hawlqabadyada, sida loo geliyo shaqaalaha, sida loo geliyo shaqada iyo shaqaalaha sida la isugu qorsheeyo. Intaba waan ku qaadan doonaa. Chapterkan afraad waxaan ku qaadan doonaa sida loola socdo horumarka mashruuca uu sameynayo, hadba halku taagan yahay, shaqooyinka la qabtay, shaqooyinka badhnika mid walba shaqadiisa iyo xilliga ay bilaabmayso xilliga dhamaanayso iyo sidoo kale deadline-ka shaqadu ay leedahay iyadoo aynu ku xidhi doono calaam ama saacad ee xasuusin karta xilliga ugu dhow ee shaqada la bilaabayo. Chapterkeena shanaad waxaan ku qaadan doonaa sida loogu analyze gareeyo critical path method iyo sida report loogu daabaco barnaamijka iyo sidoo kale si barnaamijyada aynu sameynay loogu bedeli karo barnaamijyo kale sida HTML, MS Project iyo Primavera. marka course-ka dhamayso waxaad heli doontaa shahaado cadaynaysa inaad qaadatay course-ka sidoo kale course-ku bilaash marka laga reebo diiwaangelinta. Kusoo dhawaada ka foolin training.